garabka haweenka xusbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Sanaag ayaa munaasabad ballaaran ku yeeshay magaalada Ceergaabo taasoo ay ku muujinayaan sida ay ugu diyaar garoobayaan xilliga kaambeynka xisbiyada qaranka oo muddo kooban ka hadhay isla markaasina waxay dhankooda haweenkani ku muujinayeen sida xusbiga wadani uga dhisan yahay garabka haweenka iyo guud ahaanba dhinacyada kale munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xusbiga wadaniga gobolka Sanaag xildhibaano mas'uuliyiinta garabka haweenka iyo taageerayaal tiro badan ugu horeeyna waxa halkaas hadalka isaga daba maray gudoomiyaha garabka haweenka xusbiga wadaniga gobolka Sanaag Zainab Ahmed Jaamac iyo Nadra Cumar Jabaabul oo ka tirsan golaha dhexe xusbigaasi iyo waliba xubno kale oo xusbiga ku abtirsada haweenka oo dardargelintii muujinaya xisbiga taageeradooda sida ay ugu hawlgali lahaayeen maadaama ay ku soo fowlayeen toddobaadkan soo socda kaambeygii ololaha yaalada aad iyo aad waxaan idinku mahad celinayaa sida aad maanta uga soo qayb gasheen Cabdiraxmaan halkan waa meesha uu ka yahay sida aynu maanta ugu soo baxnay ayaan rabnaa codkan inuu ka noqdo soo ka noqon maayo waxaan leeyahay dadkii lahaa 95 buu xisbiga kulmiye ka helaya waxaan idin tusi doonaa idinkoo ka hela 50 halfkii waliba maanta la isugu yimi macnaheedu waxa weeyaan dardargelinta garabka haweenka ee doorashada sida ogtihiinba doorashadii way nagu soo dhow iyo xilligii kaambeynka marka maanta waxaynu isugu nimi inaynu muujino cududeena iyo sidaynu u taageerayno xisbiga wadani inteena guriga fadhida markay daawato waa inay soo baxdo waa in meel walba laga diyaar garoobo kala degmooyinka joogana waxaan leeyahay sidaas oo kale garabka haweenku ha isu muujiyaan haweenkii garabka oo heganaanu nahay oo haweenkii gobolka oo heganaanu nahay beeniyo mahalin halgan baanu taaganahay haqabyaaladii heertay iyo haybti la iska dhaaf habeenka dhowna goolkaanu haranaynaa waxaan leeyahay anigu maalinta kaambeyga la qaadayo ee ololaha la bilaabayo Ceergaabo wax baa lagu yaqaanaa wadani waa inay cirka iyo dhulku isleekaadaan reer wadani waa inay cidiyaha iyo gacmahaba ku socotaan waxaan ku leeyahay madaxweyne gobolkii Sanaag oo aan 4 beelood ahayn oo hal beela baacad iyo cudud kula garab taagan waxaan idin leeyahay hadeer iyo hadhowba guusha waxa iska leh xisbiga wadani madaxweynaha mustaqbalka isagaanuna taageersanahay dhiigayagana u shubaynaa arfira waa leey soo dhawow waan ku hambalyeeynaa gobolka Sanaag baan kugu marti galinaynaa kii hanjabay ee yiri maxay ahay toolay boqolkiiba 95 buu kulmiye halka ku leeyahay Muuse Bixi Cabdi baa waxba ka waayay oo yiri waxba kama hayo sal iyo Sanaag waa dumarkii oo muujinaya cududoodii iyo codkoodii ay ku soo biireen xisbiga wadani Soomaalida waxay tiraahdaa markay maamaahayaan ninku ra'iyo ninku reer bil tani waa wadani ku raay oo kulmiye ku reer beel gabagabadii munaasabadan dardargelinta ahaydna waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadi oo garabka haweenka ugu mahadnaqay sida ay ugu diyaar garoobayaan xilliga kaambeynka xisbiga wadani annana waxaanu idin leenahay haddaanu nahay maamulka sare iyo ka gobolka intaba waxaanu idin leenahay hambaliyaanu idin leenahay haweenweynahayaga quruxda badan waxaanu leenahay waxa la idinka filayaa inaad gobolka maanta u hiilisaan waayo haweenweynuhu iyagaa haya dhalinyarada iyagaa haya odayaasha iyagaa haya meel dhaxaadka iyagaa haya hablaha quruxda badan iyagaa haya cid kasta oo gobolka codaysa haweenweynaha ayaa gacanta ku Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ceergaabo.